بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتاس كدب إن شاء الله تعالى waxaan ku ballansanay oo aan mar dhexdaas sheegay inaan bilaabi doono kutubo ka hadlaya ama ku saabsan culumta diinta islaamka ama culumta sharciga insha allahu tacaala maanta waxaan fursad u helnay inaan bilaawno mid ka mid ah culumta sharciga islaamka ama shareecada islaamka lagu barta cilmigan magaciisa waxaa la yirahdaa cilmu siira annabawiya cilmu taariikhu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam taariikhdii waxaa weye maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka intaanan cilmigan horta aan guda gelin aanan sheegin waxaa weye maaragtay faahfaahintiisaan aada u gelin insha allah tacaala kitaabka aan bilaabi doono waxaa weye al-urjuuza al-mii'iya fi dikri xaali ashraf albariya kitaabka yar boqolka beyd ah lilcalaama ibn abilciz alxanafi calayhi raxmatullah الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية مركا إنتانا كتابك قد قلن حنربا مركا المبادئ العشرة لكل فن المبادئ العشرة لكل فن طبعا كشيء أما مبدأ يلغب بالعودة علمي والبا الله يقانا المبادئ العشرة مركا المبادئ العشرة علمي والبا إنت هذا نحاول ماركتي قد قلن waxaa lagaga baahan yahay in aad waxaway maaragtay mabaadi'diisa tobanka ah in aad baratida lagaga baahan yahay cilmiga waxaway maaragtay aadan garanayn mabaadi'diisa tobanka ama waxyaabaha lagu bilowdo cilmiga kitaabka intaanan la guda gelin ama fanniga intaan la guda gelin ka hor la bilaabo haddaadan garanayn dee waxaad meesha ku haysid malaha ogow marka waxaway culimmadu waxay dhaheen waa 10 mabaadi'ul cashara waa 10 yacni mabaadi'du waa 10 qaarkood nadmi ay ku jamciyeen ina mabaadi kulli fannin 10 alxaddu walmawduucu thumma thamara wanisbatun wafadluhu walwaadicu walismu walistimdaadu xukmu shaaric walbacdu bilbacdi iktafaa waman dara aljamiica xaaza sharafa bal marka insha allah tacaala waxaan u gudagelaynaa marka mabaadi'dan hal waxaan u sheegaynaa marka hore waxaa nooga horeeya xad الحد إن مبادئ كل فن 10 الحد حد محيط حد علم السيرة علم السيرة تعريف تيسا محيطها يرتو علم السيرة محلوضة سيرة وامح لفظ كان سيرة اللي يراد محاوي اللغة اصطلاحانا وكل قايدين مركز اللغة يعني اللغة العربية أري كما كلمة السيرة وحل يراد الطريق والضل مرة أما حالة يعني قفك حالة ديس يعني حالة ديس قاب كيس يعني إلهي سبحانه وتعالى قرآن محكوليه أشي نبي الله موسى مركو إلهي سبحانه وتعالى كشكينه محويره قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى يعني أش قبو وحاوي مارك سيديه بهالك قبي يعني سيس أش هاي مركور أيام كسو علنين مركر مشى وحن كفاني لغهان سيرة إريقا وحالي هذا الطريق أما حتى الحال أما السنة وحكى له يدتك قاركود لهان ترجمة الشخص قفك يعني إنه أصيغ وحاول مارك ترجمة ديس أما قف إن للترجمة وحلقش شيء أيالي هذا سيرة سيدو كله واحد أركيسا مركا مارك شقوين كي يدتك يدلبنايان هذا أركيسا وحلي هذا سيرة ذاتية يعني وحاول شخصية هذا كصورن سيرة ذاتية كصورا شخصية هذه يعني وسيفي وحي قناة مركز اللغة حلقة سنقول بحين استلاحنا حلينا استلاح وحوي علماء وحوي سيرم حي وقنان علماء سيرم حي وقنان مركان وحوي ماركتي علوم الشرعية مركان برنينا علماء محي سير وقنان أما علوم وحوي ماركتي علماء أهل السير سيرم حي وقنان سيرة النبوية مركز الله حلوة قنان علم يعرف به أحوال المصطفى من يوم مولده صلى الله عليه وسلم إلى يوم وفاته وعلم وحوي علمي يعرف به لغو برت علمي بس أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم نبينا
xaaladiyaalkiisii ama waxaa maaragtay axwaashiisii waxaa maaragtay in lagu barto min yowmi mawlidihi sallallahu calayhi wasalam maalinkuu dhashay nabiga laga soo bilaabo ilaa yowmi wafaatihi ilaa maalinkuu geeriyoodo in laga sheekay ayaa waxaa culimmadu u yaqaanaan cilmu siira. marka farqi yaraa u dhexeeya siira iyo taariikh. يعني التاريخ أعم من السيرة التاريخ أعم من السيرة تاريخ دي يعني way ka guduweyn tahay marka siira la yiraahdo taariikh dii yani taariikhul islaam markaan dhahna hadee nabigan sallallahu alayhi wasallam ay kasoo bilaabanaysaa ilaa yawmina hada taariikhda islaamiga hadee wixii ka horreeyay taariikhda islaamiga laakiin siira nabiga markaan dhahno waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam min yawmi mawlidihi sharif ilaa yawmi wafaatihi. mid labaad waxaa weeye alxaddu aan kasoo baxnay ina mabaadi kulli fannin 10 alxaddu walmawduucu ثم الثمرة. الموضوع متكلم هذا الموضوع علمي قال مركا محوك سابسين محوك الله محوك الله علمي علم السيرة وحوك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إلهي أيوك الله من حيث بشريته قف أهانتيس بشر أهانتيس وهالله يا وكشكينا مالك أسود مالك أسود ماشي سادي مالك أسود دنتي أنت سو كشك ومن حيث رسالة يعني رسالة دي سي دينتي لسو دي بنا waa ka hadlaa oo maalintaas ciidad soo degtay maalintaas waxa way maaragtay nabiga la canaantay maalintaas yani risaalada xaaladiyalkeedana uu ka hadlo wa macrifatu sifaatihi nabiga sallallahu alayhi wasallam sifaatkiisii kitaabkan waa waxa way maaragtay siiradan ayadana waa lagu bartaa nabiga sifaatkiisii tilmaamihiisa waxa way al-khalqiyya wal-khuluqiyya oo kala qab al-khalqiyya yani sifaatka nabiga sallallahu alayhi wasallam xagga abuurista marka loo kaco sifaatkeedii nabiga sallallahu alayhi wasallam سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الهام مدحيس ووينه كان عظيم الجبهة كان يعني أفكيس النبي صلى الله عليه وسلم ووينه مديرين مقابلين صفات كيس يعني أبو رست إله سبحانه وتعالى لكن مركان دهنا والخلقية وحن كوننا يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سوءها النبي صلى الله عليه وسلم سيزداد كل رقم يجري أخلاق ديس هي النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صمهد كان خلقه القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق ديس وحياة القرآن كان لا يغضب إلا لله كان يعفو ويسفح عمن نداه ننك اللي واسكع في نجري نبينا عليه الصلاة والسلام كان شديد الخوف من الله وحوي ما ربت نبينا ود القاد بنا كان لينا فبما رحمة من الله لنت لهم يعني وكسر يعني والخلقية يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وحنا الأمر والنبي وحنا قدينين وحوي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لكن خلقديس وحوي ما ربتي dee ilaahay unbaa khilqida abuurta hadee ilaahay saad noo abuurta unbaan hanayna mooyaane nabiga sal ly slam hadee nabigeen waa madaxweyne madaxa weyneysanay iyo waa garweyne garaan iska soo bixina hadee shaqadaas ada laguma dirsan waaya athamara tan la saddexaad waa athamara sooma alxaddu walmawduucu thuma athamara cilmigan markaan barana maxaan ka faa'iideynaa shiddatu التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم إن وحواي si adag nabigeena sallallahu alayhi wasallam looga dhigo lagu daydo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyaabii afcaashi wanaagsaneed oo sameyn jiray aqwaashi looga daydo nabigeena sallallahu alayhi wasallam wa mahabbatihi iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam in la jeclaado oo waxa way maaragtay mahabbadiisa iyo jacaylkiisa ay kugu weynaato oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam aad waxa way weynaysid xaalad walba iyo makaan walba afku weynaysa waxa way maaragtay ficilku weynaysa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam nin wax ka sheegay wax ku dhufata oo si yeeshay wixii oo dhamaalo waxa waa marka waad ka faa'iideysaa famarada waxa waa maaragtay cilmigan laga faa'iiday midda afraad alxaddu walmawduucu thumma thamara ونسبة وفضله نسبة يعني وحاول مركان علمي كان عن علوم تكلا وبربر لهم يعني محزوق جدسي يعني مركان عن علوم تكلا ومبرنا يعني علم السيرة علم النحو ومبرنا مركان يسبربر لهم حيكون كلا جدسين يعني علوم تكلا يعني مركان الله فيري مسكون مذا مس يعني فرقيا ودحي حلينا مركا فوقانه على سائر العلوم علمي كان علوم تكلا وحاول مارتي وكسرية مسكون مدمه وكجدسين يعني وحاول ماركتي التباين والتخالف يعني وكجدسين يعني النبي صلى الله عليه وسلم دمشديسي غزوات كيسي وحاول ماركتي صفات كيسي على برتصم لكن علم النحو محل برن هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مخفوض وهذا مبني وهذا معرب وحصل برن فقه واساس وكل فقه محل برن هذا حرام حلال مكروه وحصل برن سماد مبناني وبنان marka siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam culumta kale waxay dheer tahay wax ay ayaga ka hadlaynin ayay waxa way maaragtay ka hadashaa
cashirkeena koobaad insha Allah tacaala halkaas wuu nooga ekaan doonaa. waxaan qaadanay almabaadi alcashara cilmi siira 5 ka mid ah ayaan qaadanay oo ahay alcaddu walmawduucu athamara iyo waa nisbatun 4 miya alcaddu walmawduucu thumma athamara iyo waa nisbatun 5 ka dhigayna walfadl fadligii aan ku darna waa nisbatun wa fadluhu sama. cilmigan culumta kale muxuu dheeri marka culumta kale maxaas dheeri fadli ahaan ka culumta kale ka war huwa min ashraf alculuum waxa way maaragtay cilmiga culumta la barta يعني كو ugu sharafta badan uu kamid yahay siirada nabigeena sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay li tacalluqi bi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay nabigeena alayhi salaatu wasalaam ayay maaragtay ay ka hadashaa ay maaragtay nabigeena sallallahu alayhi wasallam xawaashiisi ay ka hadashaa marka waa culum la barta cilmiga waxa way maaragtay culumta ugu fadliga badan ay kamid tahay maxaa yeelay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay in qofka waxa way aakhira marka la gaaro ilaahay haduu yiraahdo qabriga marka qofka la geliyo xayaatul barzakh يعني qofka markii la sii gelinayo qabriga oo la duugo waxa way maaragtay laga soo kala tagaya 3 su'aal la weydiin soo ma 3 su'aal waxa kamid aha muxuu ahaa nabigaada muxuu ahaa nabigaada muxuu yahay ninka ladin soo diray muxuu yahay marka hadee ninkii nabigan sallallahu alayhi wasallam barti wuxuu ku jawaabay hadee huwa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam kitaabka ilaahay aan ka bartay waa rasuulka ilaahay maxamed ninkii naqaanina muxuu ku jawaabay marka qaanina marka de la adri soomahad ma garanayo dhig markaas maxaa way maaragtay dubooyinka la dhac naarta dubooyinka naarta ayaa la dhac marka hadee waxa way maaragtay cilmiga fadliga uu leeyahay marka waxa way min ashraf alulum التي يتعلم علوم تلبرتي يعني علوم وفضل badan ayuu kamid yahay oo maxaa yeelay quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala kadib ahadiithka nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiithka siiradana يعني مرنا يعني القرن الثاني يا لك لكن اسكو مدنا ياهين ان شاء الله تعالى waxaan qaadanay 5 kamid ah 10 mabda halkaas ayaan waxa way 10 koobaad aan ku joojinayna insha Allah ta'ala marka isla socod wanaagsan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in wax dadka waxa maaragtay nagu xiran ku intifaacsadaan waxaan u sameynayno waxay tahay lillahi ta'ala li ajli Allah subhanahu wa ta'ala la liraa'i was-sum'ati umsameynayno insha Allah ta'ala intaas un bay naga tahay inta ka faa'iideysan kartana ay ka faa'iideysanaysaa inta kale waxa way maaragtay aanan ka faa'iideysan karin qasabku ma aha insha Allah ta'ala laakiin waxaan rajaynayaa inaad waxa way wax badan ka faa'iideyn doontiin Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.